بسم الله محكمة درجة كواد ciidamada qalabka sida waxay ku dhawaaqaysaa xukunka dacwad ciqaabeedkii loo heystay eedeysanayaasha kala ah dable xooga 15192 Cabdikariin Muuse Muxudiin ina Xabiibo Muuse 22 jir ah ku dhashay Shabeellada Dhexe dable xooga 15486 Aways Faarax Maxamuud ina Tahliilo Maxamuud 22 jir ah ku dhashay Galgaduud Maxamed Cali Maxamuud oo maqane ah kuwaas oo xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyay dambiga ah burcadnimo hubaysan iyagoo tiro 2 jeer ah dhac hubaysan u geystay shirkadda Hormuud taariikhdu markay ahayd 2 bishii 6 2018 waxay dhac u geysteen laanta shirkadda Hormuud ee Kaawagoday degmada Wadajir iyagoo ka qaatay lacag dhan $10874 sidoo kale 7 bishii 7 2018 waxay ka dhaceen laanta shirkadda Hormuud kiiloomitir 13 ee deegaanka Garasbaaley lacag dhan $2,000 waxayna ciidamada amniga ee deegaanka ku soo qabteen $1,500 oo qayb ka ah lacagtii ay ka dhaceen shirkadda Hormuud dood dheer kadib maxkamaddu markay aragtay qodobka 201 xeerka ciqaabta ciidamada qalabka sida markay dhageysatay maxkamaddu qiraalka eedeysanayaal Cabdikariin Muuse Muxudiin iyo Aways Faarax Maxamuud oo ay ka hor cadeeyeen maxkamadda horteeda in ay dhac u geysteen shirkadda Hormuud kana qaateen lacag lana soo qabtay markii ay sameeyeen dhac labaad kadib markii ay dhageysatay maxkamaddu markaatiyaashii la hor keenay midna ay u weydiisay marag furkooda waxay maxkamadda ka hor sheegeen in labada eedeysane ee hortaagan maxkamadda iyo eedeysano maqan ay ahaayeen kuwii dhaca u geystay shirkadda Hormuud tiro 2 jeer ah markay aragtay maxkamaddu dambi muujinta ah lacagtii lagu soo qabtay eedeysanayaasha markii ay geysteen dhacii labaad kadib oo gaaraysa $1,500 hubkii ay u adeegsadeen falka dhaca ah oo ka kooban 2 qori AK47 ah iyo 2 boosh oo ay ku jiraan qasnado AK47 ah markay dhageysatay maxkamaddu doodii qareenka oo ahayd in eedeysanaha labaad la sii daayo xorriyadiisana loo celiyo halka eedeysanaha koowaad ay maxkamaddu u naxariisato sidaa darteed maxkamadda waxaa u cadaatay in eedeysanayaasha kala ah dable xooga 15192 Cabdikariin Muuse Muxudiin dable xooga 15486 Aways Faarax Maxamuud Maxamed Cali Maxamuud oo maqane ah ay wada yihiin dambiilayaal galay dambiga lagu soo oogay waxayna maxkamaddu ku xukuntay in ay wada bixiyaan lacagtii ay ka dhaceen shirkadda Hormuud oo dhan $1,354 waxay maxkamaddu ka saartay kamid ahaanshahoodii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxay maxkamaddu la wareegtay hubkii ay ku fuliyeen falka dhaca ah waxay maxkamaddu ku xukuntay min 5 sano oo xabsi ciidan ah ciddii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxa u furan racfaan wabillahi tawfiiq